xaaladda dalka ayaa ah siyaasad ku saleysan is-eedeyn iyo kala qaybsanaan kala aragti duwanaanshaha waa arrintii ugu weyn ee xalka u baahan isku keenida koonfurta Soomaaliya waa muhiimadda koowaad ee laga rabo dawladda farmaajo shirka Jabuuti ugu furmay Soomaaliya iyo Somaliland ayaa waxa la ogeynin qodobada ka soo bixi doono iyo sida Somaliland ay u bedeli karto fikirkeeda ah gooni goosadka waxqabadka wanaagsan ayaa ah isku keenida Soomaali oo idil balse tan ugu dhow ee looga baahan yahay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay tahay xalinta khilaafaadka hareeyay dawladda iyo maamul goboleedyada bishii Febraayo 2017 markii la doortay madaxweyne Farmaajo waxa hor yiile howlo fara badan oo iminka qaarkood wax laga qabtay kuba ilaa iminka qaarkood wax qabadkooda uu cadeenin yoolka ugu weyn ayaa ah dhacdada musalsalka u muuqato ee ah doorasho qof iyo cod howl sida ay u kala horeyso ayaa loo qabtaa dadka u dhun daloola siyaasadda Soomaaliya ayaa aaminsan isku keenida Soomaaliya iyo Somaliland in ay tahay dhacdo rajo ku saleysan balse iminka howsha koowaad ee tahay qaybsanaanta ka jirto koonfurta inta aanan la aadin waqooyi maamul goboleedyada qaar xiriir fiican lama lahan dawladda Soomaaliya ayna dib ugu laabano doorashadii uu ku soo baxay Axmed Islaam Axmed Madoobe ilaa iminka dawladdu ma aysan aqbalin dagaalkii lagu qaaday Gado cunaqabateyntii dhanka diyaaradaha ee lagu soo rogay maamulka Jubbaland iyo madaxweynayaashii hore ee dalka ee lagu xayiray garoonka Aadan Cadde maamulka Puntland oo calaaqaadka uu leeyahay dawladda uu yahay mid aad u hooseeyo shirkii Garoobe ee labada dhinac oo is-afgaradwa lagu kala hayaamay doonista muddo kororsiga iyo waqti luminta ayaa ah dhacdo muuqato sida ay qabaan siyaasiyiinta qaar hadafka doorasho ee dalka ka dhici doonto ilaa iminka ma ay cadeen dawladda federaalka ee Soomaaliya halka xisbiyada dalka ay wadaan cambaareen meel aan ku saleysnayn oo aan jawaab lahayn iyo aragtidooda qalafsan ee ku aadan rabitaankooda dhacdada ayaa waxa ay tahay mudul dumsan kama naxo miya Ethiopia dan ugu jirtaa Soomaali midowda helida xal waaro xalinta khilaafka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa ah shaqada iminka degdega u baahan helida midnimo Soomaali ayaa ah dhacdo farxad gelisa bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan madaxweynihii hore ee Somaliland iyo madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hore u galay heshiis dhinacyo badan taabanayo waxa kamid ahaa deeqaha beesha caalamka ee siinaya maamulka Somaliland in loo madax banaaneeyo inta xal waara laga gaarayo laakiin arinka dawladda Farmaajo ayaa cagta marisay raadinta howl hadda aan loo joogin oo mar hore aan la soo qabanin ka tagida howsha muuqato ee maamul goboleedyada ayaa ah kuwa waqti lumis ah sida ay qabaan saamileyda siyaasadeed ee doorkooda la iska indhatiray shacabka birmigeedada ah ayaa u baahan in ay helaan degnaansho siyaasadeed